بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ciwaan aad muhiim u ah ayaan ka hadlaynaa maanta, waana dhaawac madoobaadka gangrene afka qalaad lagu yiraahdo. Dhaawac madoobaadku ma ahan cudur qofka ku dhaca, hase ahaatee waa sii xumaanshaha dhaawaca horey u gaaray qofka. Inta badan qof walba oo naga mid ah waxaa ku dhici karo dhaawac haba kala darnaadee. Haddii dhaawacaasi uusan helin daryeel, waxaa imaan kara in dhaawaca uu madoobaado. Haddii dhaawaca uu madoobaadana waxay ka dhigan tahay meesha dhaawacaas ku yaalay in ay dhimatay gabi ahaanba. Haddaba waxaa lagu macneeyaa in meesha dhaawaca ahayd ay madoobaaday, nudayaasheedana ay ku dhinteen meesha, guud ahaan nudayaasha. Waxa ayna arrinkaas ka dhalataa dhaawaca oo aan inta badan daryeel helin, wax daryeel ah haba yaraatee dhaawaca inuusan helin. Maxaa sababo dhaawac madoobaadka marka? Dhaawac madoobaadka sidee ayuu iigu dhici karaa ama oo noogu dhici karaa? Sababta ugu weyn ee keenta in uu dhaawac madoobaado waa in meesha dhaawaca ah uusan soo gaarin wax dhiig ah ama nafaqo ah. Jirkeena waxa uu ku shaqeeyo waa dhiig iyo nafaqo. Nafaqada macnaheedu waxay ka dhigan tahay cunooyinka aan cuneyno. Dhiigana sidoo kale haddii qofka dhiiga uu yaraado waa aragtay isla marka dhiig degdeg ah lagu shubayo leeyahay. Taas maxay ka dhigan tahay? Dhiiga waa wax nafaqada qaada ee wareejiya ee guud ahaan jirka oo dhan gaarsiiya. Marka meesha madoobaado waxay ka dhigan tahay in haba yaraatee wax dhiig iyo nafaqo ah aysan soo gaarin. Tusaale waxaan kuu siin karaa haddii geed weyn oo baxaya aan misaar uga dhufano laamaha oo kale, maxaa ku dhacay geedka in ay laantu jabto ama ay liicdo. Haddii geedkaas marka aanan la xirin ama daryeel kale aan la siin uu qof inta imaado isku xirinin ama uusan ka warqabin uusan fiirinin, maxaa imaanaya laanta in ay iska jabto maalinta dambe ee dhacdo. Jirka bini'aadamkana waa sidaas oo kale, waa laamo. Haddii lugta dhaawac ka gaaro ama gacanta dhaawac ka gaaro, waxaa u baahan tahay daryeel. Dhaawaca wuxuu u baahan yahay in daryeel la siiyo si qofka uu u bogsado. Inta badan isbitaalada waxaan ku aragnaa ama qofkii aad arkaysid dhaawacii uu madoobaaday in lagu keeno. Waxa ay qaban kartid waxaas waxay tahay inta madoobaaday oo dhimatay in meesha qofka laga saaro. Dead tissue ayaa loo yaqaanaa, in laga saaro meesha gabi ahaanba ama laga gooyo. Waxayna halis ku tahay qof walba oo naga mid ah. Waxay qabsan kartaa waalidkaaga in uu dhaawac soo gaaro oo aadan daryeel siinin oo aad iska fududeysatid. Waxaan u baahanahay marka in bulshada gaarto wacyi ahaan waxaani waxa uu yahay. Haddaba calaamadaha lagu garto dhaawac madoobaadka: xanuun iyo qandho sare ayuu leeyahay. Meesha dhaawaca ah qofka xanuun iyo qandho sare in lagu arko. Dhaawaca in uu ur yeesho. Haddii dhaawaca uu ur yeesho macnaheedu waxay ka dhigan tahay dhaawacan wuu sii xumaanayaa, wuu ka sii darayaa. Qodobka saddexaad maxaa ah? Qoyaan aan raysasho lahayn. Meeshii mar walba way dhicaamaysaa, waa sii arkaysaa way dhicaamaysaa, iska hiisatay. Meesha dhaawaca ah oo dareenku ka dhumo. Guud ahaanba qofka haddii laga taabto wax dareen ah aanan lahayn. Dhaawaca oo gabi ahaanba madoobaado ayaa ku sii xigi doonta. Dhaawaca haddii uu madoobaado ay istaal oo la cararayo dadka. Waxay isleeyihiin waxaani maxay yihiin, horey may u arki jirin. Dhaawac waa la yaqaan laakiin dhaawac madoobaado lama yaqaan. Dhaawac markuu madoobaado waa xaaladda ugu dambeysay ayaad maraysaa. Fadlan inta waxyaabaha ugu horeysa aad haysid la xiriir goob caafimaad ama adiga baxnaano samee. Maxaa ka dhalan kara dhaawaca haddii uu madoobaado marka? Maxaan uga cararaynaa? Marka aad isbitaalada aad joogto, waxa aad arkaysaa bukaano badan oo la ildaran dhaawac madoobaad ama gangrene-ka afka qalaad lagu yiraahdo. Waa wax laga xumaado aadna u damqasho leh sababtoo ah dhaawac madoobaadka xalka kaliya ee uu leeyahay waa in la jaro qaybtii madoobaaday. Dead tissue waa in la jaro qaybtaas oo la bixiyo. Waxa aadna ogaataa in uu yahay wax laga hortagi karo haddii dadaal la sameyn lahaa. Haddii dhaawacaas lagu dadaali lahaa waa laga hortagi lahaa. Sidee looga hortagi karaa dhaawac madoobaadka marka? Sidee aan uga hortagnaa? Sidee ayaan dadaal ugu sameynaynaa? Mar waliba ee uu dhaawac ku gaaro waxaa muhiim ah in aad raacdo tallaabooyinkan si aad uga fogaato in dhaawacaagu uu madoobaado. Si aad uga fogaato in uu dhaawacaadu madoobaado. Kadibna aad halkaas ku yeeso xubin muhiim ah. Subxaanallah, laa samaxallah. Ilaahay nooma kaso. Marka waxaad sameynaysaa ilaali dhaawacaada mar waliba in uu nadiif yahay. Maxaan sameynaynaa in aan ku nadiifino jeermis dilayaal ama isbitaalka in aad mar walba ka soo qaadato jeermis dilayaasha ama lagugu soo nadiifiyo isbitaalka. Maxaa sameynaysaa dhaawacaada ka ilaali qoyaanka ama in ay biyo gaaraan. Mar walba oo dhaawaca biyo gaaro macnaheedu maxaa in kastoo bakteeriyada fursad la sii siinayo waay. Isticmaal daawooyinka uu dhakhtarka kuu qoray.
daawooyinka qalajiyaha ee dhakhtarka dhaawaca kuugu qoray ha kala goonin adigoo dhaawacaagu raadsanin weli ha ka fogaanin daawooyinka. Haddii aad aragto calaamado aanan wanaagsaneyn waxaa muhiim ah in aad dhaqso u cararto isbitaalka. MB meeshaan waxaan dadka aad khatarta ugu sii jira waa dadka qaba cudurka macaanka. Qof walba oo cudur macaan ah qaba, ha ahaado waalid ama dhalinyaro ama qof weyn ha ahaado, waxaa muhiim ah inuu marka hore ka taxadaro lugaha oo kaba buuda uu xirto. Haddii ay dhicayso oo qofkaas dhaawac gaarana waxaa muhiim ah dhaawacaas inta badan dadka macaanka qaba dhaawacooda si fudud kuma reysto. Waxaa muhiim ah qofka inuu si dhaqso ah ula xiriiro goob caafimaad. Mahadsanidin. La wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan.